بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل كل وناكسن كسر دوادة دبك هذا القيبتن وحان كجهاد لدونا تكريجي ولا شيء إن أي حدود ذي حدان إسلام مركزنا أي ديار جروجي قدام بكتيران كدب قرارسان قبل لو ذي دل كإثيوبيا إيو دبعتهم كسعطة كدح سعطة حكومة أبي أحمد إيو وليبا قومية دور ملا تكريج وهري وحينو جينين أي جوني وقتاجناين xukunka abi axmed isla markaasina ay isugu urursadeen makale iyo deegaanka ay iyagu leeyihiin ay ka arrimiyaan haatan warar baa sheegaya ama wararkii ugu dambeeyay ee Ethiopia waxay sheegayaan dhanka Tigreega hadaynu eegno in ay xuduudada xiranayaan isla markaasina ay qorayaan ciidamo aad u badan waxaan malan maanta qof Tigreeg ah oo aan difaaca gobolkiisa u diyaar garoobin inuu san jirin arintaas aynu eegi doonaa iyo bal abaabulka ay wadaan inta uu leeyahay iyo qorshayaasha ay dejisteen inta aan xog hayno soo dhow ni horta nuurow Tigreegu de awal hore waynu ogeyn oo nima waxay ahayn budo gooni u tuman bay ahaayeen oo banaanka jooga iyagu laakiin khalkhal baa gaaray naftirkooda ninkii Abiy ah oo ku tuntay Oromadii ee uu wixii awood u hayay adeegsaday intuu tuutaha soo xidhay oo haddana maxaan ku idhaahdaa ay wasaaradii gaashaandhigga fadhiistay ee uu la wareegay dhamaanba arrimihii ciidamada iyo hay'adihii kala duwanaa ee amniga uu la wareegay markaas iyaguna kulan degdega yeesheen kulankii degdeg ahaa waxay yeesheen taariikh labo oo ahayd markii xaaladdu ay si yar inkaarayd ficilkiisii shalay baa la arkay marka xukuumadda TPLF ay hogaamiso go'aamadii ka soo baxay ficil ahaan baa loo arkay waxay bilaabeen inay xuduudda ay la wadaagaan deegaanka Axmaarada inay ciidamo xad dhaaf oo tiro badan oo macataangiyadoodii iyo waxoodii wata ay soo dhoobaan shalayto yaani saacado uma dhaxaynin marka uu Abiy Ahmed uu shirka jiraad intuu qabtay uu leeyahay wax awoodaha oo aan la harayno difaaca dalka iyo kuwa doonaya maxaan ku idhaahdaa inay Ethiopia ama kala gooyaan ama Ethiopia wada jirkeeda iyo midnimadeeda dhaawacaan ma jirto marka uu leeyahay Tigreegu waxay u qaateen in iyaga loo socdo wayna tahay badii jawaabtii marka iyagu ficil bay u bedeleen isagoo afku ka hadlay moogta maxay sameeyeen iyagu ficil bay u bedeleen gawaari dheer oo tareelayaal ah waxay ku soo qaadeen taangiyaal say u soo socdeen xuduudii Axmaarada soo dhawaan meesha ay xuduud la wadaagaan Ethiopia kale iyaga u dhaxaysa waa deegaanka Axmaarada moogta oo meel kale oo ay xuduud la leeyihiin aan canfartana way la leeyihiin laakiin xagga Axmaarada way meesha halista ugu badan ay kaga imaanayso dhinacii xuduudii Axmaarada waxay soo dhaween ciidan 30,000 aan ka yarayn khayr wax kuma yeelay shar u tooghay amal awal horena de Axmaarada isku weyn fiicneen oo xuduuddu waa u kala xidhnaydba oo la isagama gudbaynin ciidankii xuduudda joogay bay ciidan xoojin ah oo hor leh oo hub culus wata ee dul dhigeen taa kale waxay bilaabeen oo sida la ii sheegay si rasmi ah deegaan kaste ama tuulo kaste ama meel kaste oo deegaanka Tigreega kamid ah waxa ka bilaabay qorista ciidamada askarayn hor leh iskuulaadkii dugsi dhexe dugsi hoose dugsi sare jaamacaduhu awal hore askar bay ahaayeen iyo dugsiyada sare dugsiyada dhexe iyo dugsiyada hoose Tigreega lagu daray iyagana waa la qorayaa wiil iyo gabadhba raggood iyo dumarkooduna waa isku mid moogtay imaanku imtixaan waa saas oo meesha ninku maray gabadha Tigreega u maray wax farqi ah u dhaxeeya mal ninka iyo naagta Tigreega iyaga iyo Eritreanku waa isku mid marka ciidamayn rasmiya oo la askaraynayo caruurtii iyo dadkii waaweynaa ee waayeelka ahaa iyo qof kasta oo Tigreeg ah loo diyaariyay dagaal daba dheeraada ama dagaal iyaga iyo Ethiopia ay ku kala baxaan teeda kale waxay qabanayaan iyagu doorashadii maanta July waa 5 baan u malaynayaa August waxay qabanayaan doorasho iyaga iskood ah doorashada wixii ka dambeeyana waxa weeyaan iyaga iyo Ethiopia say isku sii hayaan waa adag suuragal ma noqonayso Ethiopia oo inteedii kala doorashadii dib loo dhigay gobolka Tigreega doorasho ka soo baxday dawladda federaalka oo la shaqeyn oo uuna maxaan ku idhaahdaa ay wax xiriir iyo wax aqoonsi kala dhaxayn no taa abiyuna ma aqbalayo sababtoo waa maamul sharci ku dhisan iyo maamul sharci darra mid baa waa midkood meesha ka baxaa ka sharci darra waxa ka federaalka sharci darra dastuurka Ethiopia meel laba kama jirto moogtay doorashada dib loo dhigo sideedaba haddii cudur masiibo ah oo dadku yani laynaya sida cudurrada maaragtay faafa oo kale soo cudur masiibo oo faafa ma joogo maya
maya soo kan corona adduunka koronahani waxaa weeye waa argagax ilaahay ummadda kusii daayay mooyaane iyo cabsi kale mooyaane waxa dadkan hadda Ethiopia markii la yiraahdo waxa uu ku dhacay iyo dadka u dhintay oo dhan markii la isku daro waa dad 3,000 iyo 4,000 5,000 ma gaarayaan waay malaariyada meeqa u dhimatay Ethiopia malaariyada kaliya maalinkii waxa u dhimatay 10,000 qof warmay garatay marka waxa weeye xaqiiqda la isla wajaha moogtahay waxa muddo kororsi mooyaane waxaan ma aha cudur ma aragtay la leeyahay hadda malaariyada ka daran badla adduunka ha Francisco hadda iyadoo meel soo waxay ka dhacayso doorasho ma ahayn meel walba adduunka way ka dhacayso doorashada oo isdaba istaagay waa un lawatay Mareykanku waa qabsanayaan doorashada hadda waxay ku leeyihiin maalinkiina 100,000 qof yaa halis ay tahay inuu ku dhaco ama soo rito doorashada inay ka tashama ka tashama way dhacaysaa ha waa saagaran marka waa farsamo xukunka uu ku sii dheereysanayo ninkan mooyaane ma aha xaalad hadda halis keenaysa oo doorashada meesha ka saaraysa ma jirto aanu soo noqon marka nimanka Tigreega marka waa niman horta ismaqla ninkii Tigreega mucaarada maamulkoodana waxa weeyaan isaga u taala muxaafad iyo mucaarad TPLF iyo xisbiyadii kale waxa ka go'an oo ay hadda ku wada gowracan yihiin wax la yiraahdo danta Tigreega iyo jiritaanka maamulka iyo dawladnimada Tigreega soo garan haddii aysan sidaa yeelinna barqa hawada lagu duban dadkaas 110 milyan ee Etoobiyaanka waxay ka noqonayaan 4 milyan soo garan 4 milyan marka maxaa soo haraysa 110 milyan markii 4 laga gooyo 106 baa soo haraysa soo ma bad alaal ku dhacay yani hal qof oo aan eed ka sheegaynaynin ama aan dakana ayna ka qabin ma jirto nimankan waa niman qabiili ah way waa sida Soomaalida oo kale way ma aha sida Oromada iyo Axmaarada oo kale iyo maaha ayagu waa jilib iyo laf iyo qabiil halka Oromada iyo Axmaarada inta badan siiba Axmaaradu ay magaalo qabiilkoodu waa magaalo laakiin kuwan qabiilkoodu waa jilib sida Soomaalida oo kale qoys weeyaan marka way is og yihiin wixii ay geysteen iyo dunuubta loo haysto ama ha galeen ama yeena galine kooxda TPLF ba u soo jiiday yay ku wada gowracan yihiin sidaa daraadeed iyaga oo ka duulaya marxaladda qalafsan ee haddan Ethiopia ay gashay iyo qorshayaasha uu Abiy Ahmed ku wajahay maxaan ku yiraahdaa kacdoonka Oromada inaan iyaga naf loo haynin asxaana aan loo sameeynin hadiiba ciidanka Ethiopia ee military ay galaan gobolka Tigreega oo meeshii xabad ka bilaabato dug baa laga dhigtay hal qof oo dambe oo Tigreeg ah soconaya inaan dib loo arag bay ku xisaabtamay Axmaaro filinkan Axmaara wadata Soomaaliya garan sababtoo ah waa nimanka kaliya ama cidda kaliya ee talada dalka Ethiopia ay uga cabsi qabaan inay ka qaadato ama ka qaadan kartaba cid kale oo ay xaab iska saarayaan haba yaraatay ma jirto laakiin Axmaaro falaad baa ku taagan inta Tigreeg dhabarkooda yahay waana dariso waa ood wadaag dhulna way ka qaateen tira badan dhulkii hadda si ay ku soo ceshadaan bay garan laayihiin xukunkii wali Tigreegi baa laf dhuun gashay ku aho haddii Axmaara ay qabsato dagaal bay soo kicin xogaha soo baxaya ama kama population badna hadda ku jilcisadaan ma nimankan hub casri ah haystaan iyo hubkii Ethiopia oo dhan bay haystaan marka tira waxba sheegi maysa tayay leeyihiin Axmaarada naftirkooda ma tayo xuma laakiin hubka iyo moralka iyo niyadda Tigreegu waa niman ay ka go'an tahay inay wax iska celiyaan waa dambiilayaal say u dhan yihiin ama dil ha geystaan ama inay geysanin laakiin waxa laga aaminsan yahay inay dambiilayaal yihiin oo loo turaynin ayaguna taa way og yihiin marka waa inay qurbaxaan waxa ninka Tigreegu uu dhiman karaa laakiin ismana dhiibayo cid kalena ma xukumayso laakiin waxay diyaar u yihiin iyaga oo dagaalamaya inay dhintaan sababta waxay geysteen way og yihiin asxaan in loo sameeyay way og yihiin dadkana way yaqaanaan oo dad looga sheekaynayo ma aha waa dadkii ay waligood iyo Allah isla soo deganaayeen taariikhda baa taala meesha iskuulada maxaa ku dhahay Tigreega waxa lagu dhigaa taariikhda shacabka Tigreega iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen iyo dhibaatooyinkii iyaga loo geysan jiray iyo halgankii TPLF soo garan meelaha caweysiyada afiiri meelaha caweysiyada ee maxaa la dhahaa lagu khamreeyo heesaha laga shidaa soo maaha heesaha laga shido marka ay dhalinyarada haweenka ahad iyo waxa ay isugu tagaan heesihii gobonimo doonka iyaga loo shidaa heesihii gobonimo doonka yaa loo shidaa markii bahasha khamrada laga dhirga waxa looga sheekeeyaa halgankii TPLF iyo wixii ay soo mareen waa kuwii khamreynayay ogow
maxaad u malayn marka mid iskuul jooga amaba maxaan ku idhahdaa to shaqaale dowladeed ah ama askari ah oo loo carbiyeyba dalkan inuu difaaco maxaa u malaynaaday kii khamreynayay ee aan waxbaba haynin yaa barta uu jooga lagu abaabulayaa kuwa kale oo inta la khamreeyaan uga sheekeeya halgankii iyo wixii lasoo maray iyo waxay Ethiopia tahay yaa jooga oo u sheekeynay waa niman marka mowqif iyo go'aan la weeye ma aha sida Oromada iyo Soomaalida kale ma aha waa niman raba inay wax xukumaan laakiin aan la xukumin iyaga aad iyo aad marka hadda xuduudihii marka waa hadda xuduudahoodii way xidheen kow ciidankoodii xoogga oo awal horeba u dhisnaa oo awal horeba ay diyaariyeen muddadii 2 sano ahayd ee abi uu meesha joogay shaqadii ugu badnayd ee ay qabteen waxay ahayd diyaarinta ciidamada kala duwan ee maamulka Tigreega haday ahaan lahayd nabad sugid iyo sirdoon ma u malaynaysaa ma aaminsan tahay adiga sirdoonka TPLF ama maamulka Tigreega inuu ka awood badan yahay oo ka xirfad badan yahay kii kan hadda Ethiopia caadi shaqeeya kan dawladda dhexe ha way laakiin waxay ku fiican yihiin way wada shaqeeyaan oo xagga amniga way ka wada shaqeeyaan ha xagga amniga waa laga wada shaqeeyaa ha xogaha iyo maxaan ku idhahdaa dhageysiga taleefanada mucaaradaadka iyo la socoshada xogaha dhinaca internetka iyo adeega arrimaha bulshada oo dhan iyaga ka shaqeeya Tigreega ka shaqeeya soo garan sababta waxan way ka sii diyaar garoobeen axmaarada kii joog dhahaa hawada ka saaray ha activistiyaasha axmaarada kuwa hadda Mareykanka jooga oo de kharash badan intay bixiyeen copyright samaystay maxaan ku idhahdaa to lagu xidhay bahaladii maxaan ku idhahdaa to antivirusyo waaweyn oo aan suuragal ka dhigaynin in maxaan ku idhahdaa to laga guuleysto ama weerar kasta oo lagu soo qaado si sahal aan lagu jabsanaynin laakiin intii badnayd bay jajkii kala duwanaa ee axmaaradan asal raaca ay lahaayeen kuwan sareynta axmaarada aaminsan hawada ku wada dubteen dhamaan hawada ku dubteen ayagana kuwadu ilaa 4-5-6 page baa jira oo ay leeyihiin oo dibs wayaanaga bahalkan la yiraahdo idaacadda codka halgamayaasha la yiraahdaa iyo TV-ga loo furay iyo maxaan ku idhahdaa beeshashka kale oo Tigreegu ay leeyihiin oo TPLF ta hoostaga way iyagoo dhan way isku xidhan yihiin ka ariga la jooga iyo ka beerta qodanaya iyo ka madaxweynuhu intaas halkaas ku wada xidhan way isku wada xidhan yihiin ha aad iyo soo garan marka waa ummad cadowgeeda og waa ummad colkeeda taqaana waa ummad waxa ku soo socdo dareemaysa waa ummad inaan loo turaynin og weey ummad marka waxa weeye taladeedii iyo tawfiiqdeediiba intay meel isugu keentay rabta meel ay tabaru dhigtaba inay dagaalanto mar haday saas tahayna laguma dhacayo hadda marka muhiimadda waxa ka cusub waxay tahay xuduudihiina way xidheen qorista ciidamo cusubna way bilaabeen dadaal iyo diyaar garow ay doonayaan dagaal daba dheeraada inay kala hortagaan imtixaan ku sii jeeday rabana ka faa'iideysan ma isaga naftirkiisa isu diyaarinaya isaga naftirkiisa hub culus ba hadda gaaray waliba casriya hub badan baa gaaray ciidankii badan uu tababarkii uu dhamaystay ciidamo kale oo tiro badanna tababaray ka soo baxeen kor baa loo qaaday tayada iyo tirada ciidanka Ethiopia ciidanka badda xagga lageyn marka ciidanka badda waxa lageyn ma aqaan meelihii loogu talagalay soo agaran tirada iyo tayada ciidanka Ethiopia 8 bilood ugu dambeysay kor baa loo wadaa kor baa loo wadaa ciidamadii joogay Baydhabo iyo maxaan ku idhahdaa to xudur iyo waajid iyo buurxa kabi iyo maxaan ku idhahdaa ilaa baar dheer meelaha ciidankii joogay oo dhan waa la dib baa loo daabulaya hadda aad baad mahadsan tahay jaamacow waqtiga cararaya halkaas aan ku joojinaynaa barnaamijkaasi wixii warar ee soo kordha mar walba waan idiin soo gudbin doonaa haddii rabbi qadaro tan iyo kulanti dambe fi amaanillah